xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Cigayare oo warfideenka ugu waramayay gudaha magaalada Burco ayaa si adag uga hadlay dhacdadii Caynaba kaga dhacday wafdigii ula socday oo hogaaminayay siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa kale oo xogayuhu ka hadlay arrimo kale oo ku saabsan siyaasadda dalka ee waqtigan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigoo ah xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada xisbiga wadani Axmed Cigayare waxaan doonayaa inaan arrimo yar oo kooban maanta ka hadlo dad fara badan aan u mahad celiyo arrintii Caynaba waftigii aan ka midka ahaa ee hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan hogaaminayay arrintii meesha Caynaba laga naga qabsatay arrintaas aan doonayaa inaan ka hadlo arrintaa sida ay dadkuba wada ogsoon yihiin ayay u dhacday waxaan u mahad celinayaa dadweynihii reer Caynaba siday uga dhiidhiyeen ee u diideen inay xisaabad yar oo aan 5 iyo 4 ka badnayn inay codkooda iyo sumcaddooda baabiyaan siday u diideen ay TV-yada iyo social media ay uga hadleen ayaan u hambalyeynaya waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan kale u mahad celinayaa dhulkaan soo maraynay tuulooyinkii Taalabuur Balidhiig Balicalanle Qorulugud Wadaamago meel walba sidii loogu soo dhaweynayay wixii aanu markaa taraynay ay noogala wareegeen iyaguna aad iyo aad bay u mahadsanayeen waxaan kale oo aan doonayay inaan tilmaamo dhacdada Caynaba ka dhacday baaritaankeedii markaanu baadhnay cidda kaliya waxaan Soomaaliland shacabka Soomaaliland iyo reer Caynaba u iftiiminayna inay ahayd casaabo yar oo kooban oo Caynaba joogta inay maleegtay in dad wada samafal biyo dawo wada in laga hor istaago oo muwaadiniina oo dad qaranka u soo shaqeeyay ay ka mid yihiin in laga hor istaago inaanay madaxda qaranka oo dhammaan aanay ka mid ahayn ee ay lahaayeen heer gobol mas'uuliyadaas aanu baadhnay ulajeedada ay ka lahaayeenna aanan wali fahmin waxaan u daynaynaa Caynaba ma dhici karto in waxaasoo kale ay ku soo noqnoqdaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxa la aqbali karo maaha waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaadba shacab weynaha reer Caynaba waxaan leeyahay Caynaba maaha inay habeen walba media ku jirto iyadoo le waanu dhibaataysanahay abaaraan nahaya dad baa dhimanaya markaanu wax u keenana ay qori dhuunta naga geliso wax sax maaha reer Caynabo ha isku noqdaan Caynabo waa meelihii dalka laga xoreeyay taariikh fiicanna way ku leedahay halkankii Soomaaliland dad gobobna way ku nooliin laakiin casaabo yar oo had iyo jeer TV-gana taagan iyagoo baahi sheegaya ayaa ku lug lahaa arrinkaas ninka kaliya ka hadlay wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar saaxiibkayga waxaan leeyahay wuxuu yiri wax badan buu sheegay Xirsi buu ula baxay wuxuu yiri 2 kartoono biyaa may saxaad keenteen cidii ma soo sheegin waxyaalo fara badan qori dhuunta lagagama qaban waxyaalo badan buu sheegay waxaan u sheegayaa shacabka reer Caynaba ninkii loo diray uu tagay ee uu yiri dhaqaatiir baanu leenahay waanu haysanaa dhaqaatiir nagu filaneen maadeerayaal dawooyinka wayna kula wareegaynaa bacda casr hayno ahaato anigayga afkayga kula hadlayay buu ahaa laakiin mas'uulkaasi waxba oran maayo xilku ku cusbaa oo biliya wax yar buu hayay wuxuu fahmay in sida beentu ku jirto loo shaqeeyo marka isagana anigu inta u dhaafi maayo waxaan kala doonayaa inaan wax ka tilmaamo xisbiyada Somaliland waxaad mooday inay ma xisbigan aan ka tirsanahay wadani marka lagu daro waxaad mooday in si dhinac kale ay u wada shaqeynayaan ninka xisbigu ka tirsay hadduu dhaliil ku arko inuu tilmaamo waa sax waxyaalahan aan ka arkay waxa ka mid ah qoladii xukuumaddii iyo xisbigii kulmiye waxay taarget gareynayaan
oo ay leeyihiin ha la qabto ha laga hor istaago hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaanu idinku dhaaranaynaa oo aan inii sheegaynaa reer kulmiyow inaanu Xirsi Cali Xaaji Xasan musharax ahayn musharax xisbiga wadani waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro qolada kulmiyana qoladayada wadanina waxaan leeyahay oo iyaduna ay la mid tahay aad mooday inay meel kale xoqayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo mar walba carabka rag wadani kamid ay ku adkeeyaan madaxweyne Silaayo musharax maaha madaxweynuhu dalka kama taliyo marwada madaxweynaha sidaasa arrimaha sidaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa ogtiin boqolkiiba 51 in kan badan baa Soomaaliland u codeysay marka in la xoqo madaxweynuhu waxa weeyaan ku suntan horumar ay taariikhdu ku qorayso marka waxaan leeyahay saaxiibadayda jecel inay guuleystaan xisbiga wadani xoqniinka aad ku xoqaysaan waxayna la tartamaya Muuse Biixi Cabdi waxaanu target gareynaynaa Muuse Biixi Cabdi haddaad ku fakarno inaynu dhagax ku wada dilo Muuse Biixi Cabdi iyo Silaayo suurtagal maaha waa inaynu cidda aynu ataagaynaa noqonnaa Muuse Biixi Cabdi musharaxa ayna la tartamaya Muuse Biixi Cabdi haddii si aynu target garayno Silaayo oo anigu aaminsanahay inuu yahay wax qabadka Soomaaliland taariikhduna ay xusi doonto waxa weeyaan ku guuleysan mayno waxaanu noqonaynaa sida nimanka kulmiye Xirsi ha la qabto meel walba la taagan fashil waynu ku dambeynayna arrinka ha la iska ilaaliyo Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Wanaag News magaalada Burco